Kalumeysatada ku dhaqan degmada Warshiik ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa muddooyinkii la soo dhaafay hakad geliyay talaabashadooda dhanka kalluunka taasoo ay saameyn ku yeelatay Dabeylo ka dhacayo badda inta badanna ay saameyn ku yeelatay talaabashada kalluunka ay soo jalaabanayeen kalumeysatada qaali mire oo kamid ah dadka ku dhaqan degmada Warshiik ayaa wax ka weydiiyay Dabeylahaasi ka dhacayo badda degmada Warshiik oo saameynta ku yeeshay kalumeysatada in ay ka soo kalumeystaan badda waxaa weyn ka soo gaaray doon la yiraahdo foolfo oo ku gadoomi doona Warshiik doonta waa ku burbur waxa khasaare soo gaaray kalumeysatada wallahi hantidii wixii ku jajabeen wiilasha Ilaahay waa ka soo badbaadiyay laakiin doontii wixii oo dhan waa jajabeen oo waxoodii badiba wixii kalena badda ugu daateen waa jirta doonka loo foolfo asaasa loo badda ugu jajabtay doonka loo faaro boorka saasa ugu jajabtay waa sanadkaana dhibaatada waa iska badan tahay sanadkii horeeyna waaba ka sii darneedba waqtigaas sanadkii horeeyaba ugu darnaayo waayo waxaa ka soo gaartay waxyaalo badan ka soo gaartay waa ku dhinteen qaarkood xitaa maraakiibta oo badda ku jirta inta ayagiiba qoorada isku wataana dibadaha iyo meelahaas laga soo kalumeysatada ku dhaqan degmada Warshiik ayaa saameyn ku yeelata sanad walba xilliyada xagaayaha taasoo hakad geliya inay ka soo kalumeystaan badda gudaheeda inta badanna saameyn ku yeelato doomaha ay wataan kalumeysatada Bashiir Cali Daahir Radio Kulmiye Shabeellaha Dhexe Jowhar.